أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصوم هذا محله ومبحثه، ودرسيني شن iyo tobnaad ee ka mid ah kitaabkeenii الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة. musanifku raximahullahu tacaala saan horay usoo sheegnay risaaladani waxay ka kooban tahay 3 qaybood. qaybta koobaad oo ah caqiidadii iyo ilaahiyaadkii uu kasoo baxay, qaybtii labaad oo ah cibaadaadkii ama yaan kusoo jirnay ama fiqigii, salaadii iyo dahaaradii ayaan soo ogaanay oo aan soo sharaxnay. markuu salaada dhameeyey arkaanul islaamka, salaada waxaa ku xiga soomka ayaa ku xiga. marka soomkii iyo axkaamtiisii ayaan halkan ka gelaynaa insha allahu tacaala. wa ama sawmu sawmkii, wa huwa sawmku athaalithu waa midka saddexaad oo athaalithu waa midka saddexaynahayo oo min arkaani lislaami, islaamka tiirarkiisa ka mid ahe. fa huwa sawmkum imsaakun afhaysasho weeye, imsaagoo macruufun la yaqaano, calaa wajhin qaab loo afhaysto, wejka oo makhsuusin la khasisay. wa minhu wejkaas makhsuuska ayuu ka mid ahaaday anniyatu ayaa ka mida likulli yowmin, maalin kasta la niyoodo. wa tabyiituhaa, niyada bariisiinteedana waa waajib min alleyli, habeenkii la bariisiiyo. wal imsaaku afhaysashana waa waajib canilmufadiraati, kuwii wax afurinahaya laga afhaysto, min adacaami iyo washaraabi iyo waljimaaci iyo walistimnaa'i bimubaasharatin ah, iyo walistiqaa'ati iska matajin bilikhtiyaari la iska matajiyo. wa ama sawmu soomka luqa ahaan waxaa lagu yidhaahdaa al imsaak, amaa xagga sharciga waxaa lagu yidhaahdaa soom al imsaaku can jamiici almufadiraati, waa afhaysasho laga afhaysto kuwa wax afurinahaya dhammaan laga afhaysto. min duluuci alfajri ilaa quruubi shamsi, laga bilaabo markuu fajarka salaada subax ay dhalato ilaa qoraxdu ay ka dhacdana laga afhaysto shay mufadir ahoo wax afuriya, laguna afhaysto biniyatin makhsuusa, niyo khaasana lagu afhaysto oo ah inaad biri soomaysid, maalin ramadaana aad ka soomaysid. calaa wajhin makhsuusina loo afhaysto, yacni wej makhsuus ah oo shuruudiisii la ilaaliyana loo afhaysto. soomka ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa waajibiyey, qur-aankiisuuna ku sheegay oo yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. duulkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyow, ilaahay wuxuu idinku waajibiyey soom sida uu ugu waajibiyey kuwii idinka horeeyey. saasuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala. soomka waxaa la waajibiyey sanadkii labaad ee hijrada, bisha shacbaan, markii nebigu uu intuu maka kasoo hijrooday madiine uu yimid. sanadkii koobaad lama waajibinin, sanadkii labaad baa la waajibiyey, bisha shacbaan dhexdeedaa la waajibiyey. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu soomay 9 ramadaan ayuu soomay. 9 ramadaanba nawaaqis ayay ahaayeen ilaa hal xaba mooye. nawaaqis waxaa looga jeedaa yacni ma dhammaystirmin, soddon ma ahayn macnaha, ee wuxuu soomay nebigu calayhi salaatu wasalaam 9 ramadaan. 9 ramadaan 8 ka mid ah wuxuu nebigu soomay 10 iyo waxaan ka wadaa 29 buu soomay. hal xaboo ka midana 30 buu soomay oo dhammaystiray. bisha ramadaan waa bisha 9aad ee ka mida shuhuurta carabiga ah, oo bilaha marka lasoo tiriyo, biluhu sida bilahan carabiga waxay ka bilowdaan ama qamarigu sanadka zaka laga bilaaba, bisha zako oo loo yaqaano muxaramna waa la dhahaa, laakiin dadku maxay u yaqaanaan? zako ayay u yaqaanaan. haddii laga soo tiriyo marka zako, safar, mawlid, maalmadoone, jumaadul uula, jumaadul aakhir, rajab, shacbaan, ramadaan waxay noqonaysaa marka bisha 9aad oo ka mida shuhuurta carabiga ah. waxaa la yidhi waa afdalu shuhuuri, bilaha midda ugu fadliga badan weeye bisha ramadaan. ramadaan waxaa loogu magacaabaa la yidhi carabtii markay bilaha magacyaalkooda dejinaysay
oo ay bilaha magac u bixinaysay ayaa bishaan ramadaan waxay ku soo aadaa la yidhi waqti aad u kulul bay ku soo aaday oo kulayl ah markaasay ramadaan ku magacaabeen fasamuuhu ramadaana ramadaanka min aramdaa ayaa laga soo qaatay rambahana waxaa looga jeedaa shiddatul xarri kulaylka daran baa looga jeedaa bacdu culamo waxay yidhaahdeen waxaa ramadaan loogu magacaabay liannahu yurmidu dunuuba dunuubta ayuu gubaa ramadaanku dunuubtuu baabiyaayo wuu gubaa macnaha marka wuxuu ku yidhi wa ama sawmu soomkii fa huwa soomku waxaa tirahda wa ama sawmu soomkii wa huwa soomkuna athaalithu waa midka saddexaad oo min arkaanil islaami islaamka tiirarkiisa ka mid a waa rugniga saddexaad oo ka mid a arkaanul islaamka arkaanul islaamkii lagu sheegay xadiidkii nebigoo buniyal islaamu calaa 5 kii saddexaad weeyaane fa huwa soomku imsaakun waa afhaysasho macruufun oo la yaqaano imsaak macruuf ahoo la yaqaano canil akli wa shurbi laga afhaysto canil akli wa shurbi laga afhaysto waayah calaa wajhin qaabna loo afhaysto wejkoo makhsuusin la khasisay yani wej khaasana loo afhaysto calaa wajhin makhsuusin loo afhaysto yani wej khaasa ilaan haddaad hadda iska afhaysatid oo cuntada iska dhaaftid imsaaq way tahay laakiin ramadaan lama dhihi karo ramadaanku waa imsaaq macruufa oo haddana wej khaasa ahaaday ka bilowda afhaysagaas fajarka saadiqa ilaa duluuci lfajr yani fajarka saadiqa ilaa quruubi shamsi inta udhexaysa la afhaysto wa minhu imsaagaas waa yahay ayuu ka mid ahaaday anniyatu baa ka mid ah niyadii baa ka mid ah yani imsaagaas macruufka oo wejka khaaska loo afhaysanaya waxaa ka mid a niyo likulli yowmin la niyoodo maalin kaste waa in la niyoodo oo soomka niyadiisu waa waajib likulli yowmin cinda alimaami shaaficiyi imaamu shaafici agtiisa maalin kasta in goonideeda loo niyoodo ayaa waajib ah marka maalin kasta waa inaad goonidiisa u niyooto maalin kaama xambaari karo 30 beri habeen kasta waa inaad goonideeda u niyootid maalikiyada waxay leeyihiin habeenka ugu horeysa bisha ramadaan hal mar jamc waad u niyoon kartaa 30 beri inaan soomo ayaa niyooda waad dhihi kartaa marka habeen kale inaad usii niyooto waxba shardi maahan bay leeyihiin laakiin shaaficiyadu way diideen taas maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa waxaa laga wariyey inuu dhahay man lam yubayit niyata falaa siyaama lah qofkii aan niyada bariisiinin soom ma laha qofka asaga soom uma sugnaanin marka waa in niyada la bariisiiyaa habeen kaste niyada waa in la bariisiiyaa marka fiiri hal mar ma wada niyoon kartid waa inaad habeen walba goonidiisa u niyootid tabyiidna waa in la helo oo niyada aad niyootaa marka gobolku dhaco maqribkii laga bilaabo ilaa intuusan fajarku dhalan qabla fajri inta udhexaysa xataa waqtiga suxuurta waad niyoon kartaa wa minhu wejkaas imsaagaas macruufka waxaa ka mid a anniyatu baa ka mid a niyadii baa ka mid ah likulli yowmin la niyoodo oo min ramadaana ka mid a maxaa yeelay lianna kulla yowmin cibaadatun mustaqila maalin kaste waa cibaado mustaqilo ah oo goonideeda u madax bannaan waayo maadaama maalin kasta ay tahay cibaado madax bannaan oo goonideeda u madax bannaan maxaa lagaa rabaa niyo ayaa lagaa rabaa walaa takfi niyatun waaxidatun likulli shahrin bisha dhan hal niya yaan u niyoonayaa kaa kaafin mayso cinda alimaami shaaficiyi ee ogow wa tabyiituhaa tabyiitu niyati niyada bariisiinteedana waa waajib in la bariisiiyo habeenkii la niyoodana waa waajib tabyiidku waa maxay hoos wuxuu kaa leeyahay bian yuuqica niyata bayna aakhiri alquruubi wa duluuci alfajri niyada waa inuu qofku ku ridaa oo dhex ridaa quruubka markay qoraxdu dhacdo laga bilaabo iyo wa duluuci alfajri inta udhexaysa bayna quruubi iyo wa duluuci alfajri fajarka dhalashadiisa iyo qorax dhicitaanka inta udhexaysa waa inaad niyootaa wayajibu tabyiituhaa min alleyli fi siyaami alfardi soomka waajibka habeenkii in la bariisiyaa waajiba ka sawmi ramadaana walqadaa walkafaarati wannadri soomka waajibka oo dhan soomka ramadaanka oo kale kii ramadaankii kaa tagay oo qadaynay sidoo kale
kii oo nadarka ahaa ood ku nadartay ilahay wuxuu ugu leey inaan berri soomo oo kale caawo inaad sii niyootiba waajib kuu noqon kafaaradii oo dee waxyaabaha kafaaraadka ilan soonka marmar buu kafaaro waajibaa oo qofkii tusaalahaan maalin ramadaan oo qofkii xaaskiisa u tagoo jimaaca 2 bilood mutaabic inuu soomaa waajib ku noqonaysa soomkaas waa soom waajiba marka soomul kafaara la yidhaahda marka kaas oo kale in niyada la bariisiyo waajib ay noqonaysaa waayahay waxaa soo aroortay nebigu inuu yidhi laa siyaama liman lam yajmaci siyaama qabla alfajri soom uma sugnaanin qofkii aan soomka jamcinin fajarka hortiisa macnaha aan niyoonin baa looga jeedaa laakiin soomka sunnada ah asaga waxaa bannaan in la niyoodo maalinka in la niyoodo qabla zawaal waad niyoon kartaa intaysan qoraxdu zuulin laakiin waxaa shardi ah haddaad niyoonaysid qabla zawaal inaadan wax mufdira aadan isticmaalin laga bilaabo markuu fajarku dhashay haddaad laakiin barqadii intaad gurigaad aroortii intaad qaxwo ka soo cabtid barqadii aad tiraahd quraaci wax intaad guriga ka weyda waan soomayaa waxba ka ansixi maayaan maxaa yeelay aroortii baa shaa cabtaybe marka waxaa la rabaa inaadan markaad barqadii niyoonaysid waa in aadan maalinkii macnaa fajarka intuu dhashay kadib aadan wax cunin waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam yaa laga qaadanaya maalmaha ka mida wuxuu u yimid umuna caaisho markaasaa wuxuu yidhi ma haysaa wax la cuno mayay tiri markaasaa nabigu wuxuu yidhi idan asuumu waan soomayaa u dha marka waan iska soomaya marka soomka sunnada in la niyoon karo barqadii halkaasaa laga qaadanaya wa tabyiituhaa tabyiitu niyati niyada bariisiinteedaa waajib ah min alleyli habeenkii la bariisiiyo marka uu niyoonahayo halkaas hoosuu kaaga sheegayo sida akmalkaa horta waa inuu qalbiga ka niyoodo qalbiga inuu ka niyoodo ayaa la rabaa sida sunnadaana marka oo waajibka waa inuu qalbiga ka niyoodo carabka inuu ugu talafudo oo ku dhawaaqo oo uu yidhaahdo nawaytu sawma qadin can adaa'i fardi shahri ramadaan hadihi sana lilahi tacaala saas inuu yidhaahdana waa sunno liyusaacida lisaanu alqalba si carabku uu ugu kaalmeeyo qalbiga oo haddii wixii qalbiga intaad ku haysay haddana carabka uga dhawaaqdid wixii aad qalbiga ku haysid baad yani xiranaysaa macnaha marka in lagu dhawaaqa marka waa sunno in laakiin qalbiga laga niyoodo waa waajib weeyaan ogow wal imsaaku afhaysasho weeye wuxuu ku yidhi marka wa minhu min alimsaaki ayuu ka mid ahaaday anniyatu baa ka mid a imsaaga macruufka oo calaa wajhin maqsuusi loo afhaysto niyadii baa ka mid a walimsaaku afhaysashaa ka mid a can ilmufadiraati waxyaabihii aafurinahayay qofka saa'imkaa laga afhaysto oo min adacaami iyo washaraabi iyo waljimaaci iyo walistimnaa'i bimubaasharatin iyo walistiqaa'ati bilikhtiyaari yani wuxuu ku leeyahay qofka saa'imka ah waa inuu ka afhaystaa waxyaabaha mufadiraadka ah ee afurinahaya sida dacaamkii sida sharaabkii sida jimaacii oo inuu xaas loo tago istimne oo qofkii inuu mini iska keeno mubaasharo iyo wax lamida uu iskaga keeno matag inuu iska keeno istiqe ikhtiyaarkiisa uu isku matajiyo uusan matagu soo qasbin waxyaabahaasoo dhan soomkii way burinayaan wuxuu ku yidhi marka wal imsaaku afaysashaa weeye min almufadiraati waxyaabihii wax afurinahaya laga afhaysto ama canilmufadiraati laga afhaysto mufadiraadka waxaa looga jeedaa wusuulu caynin min adacaami aw isharaabi wagayrihimaa ilaa maa yusamaa jawfan waa inay gaadha cayn dacaam ka mid a cayn yani wax muuqata caano biyo masago beriis baasto hilib wax cayn ahoo muuqdoo la taaban karo waa inay gaadha oo dacaam ama sharaab ka mid a iyo keyrkoodba waxay daraan ha ahaadaane ilaa maa yusamaa jawfan wax joof lagu magacaabo ay gaadho asagoo caamidaho u kasahaya oo aan naasi ahayn soomka xasuusan haddana caalim ahoo aan jaahil ahayn oo in la soomo in wax la cuno maalin ramadaana inay xaaraan tahayna ku cilmi leh mukhtaar ahoo aan la qasbin saddexdaa qaydaha isagoo laga helay haddee joofkiisa wax gaadhaan soomkii waa ka burahaya laakiin caamid aan nidhi hadduu naasi yahay isagoo soonkii dhanba iska halmaansan buu cunto ka dherga soonkiisi ka buri mahayo ilaahay baa quudiye fa inamaa adcamahu llahu wasaqaah ilaahay baa quudiye oo waraabiye qofkaa asaga xabad soonkiisa ka buri maha markuu xasuusta iska dhaaf
maya waaba jaahil macduuraba waa qof hadda soo islaamay oo islaamnimada ku cusub qariibu cahdin bilislaam ama ma ahane hadda ma soo islaamin weligii muslim buu ahaa laakiin nasha'a baciidan can alculamaa wuxuu ku barbaaray meel culamada iyo dadka ahludiinka ka fog buu ku barbaaray saas daraaddeed ma uu awoodo yani ma uu garanaya in soomka ay buriso wax la cuno inay ama wax la cabo ay soomka buriyaan maba garanayaba kaasna waa jaahil macduurah soomkiisi ka buri mahayo waxaa la mid ah qofkii caalim caamida weeye laakiin waa la qasbay waa mukrah mukhtaar ma ah ilan waa inuu mukhtaar yahaan nidhi moogta hadduusan mukhtaar ahayn qofku oo uu yahay qof mukrahoo la qasbay xabad baa dhafoorka lagaa saaray 5 baa lagu dhufan baa ama cuntada cun waad ka dhargaysaa soonkeena kaa buri mahayo marka wuxuu ku yidhi wal imsaaku afhaysasho ayaa ka mid ah يعني صومكي نيا كميد أهل لويري وحكمي ذو كله إمساك عن المفطرات اللي قافست مفطراتكم من الطعام راشين كيه طعام كيه هدو عنا أسوى عالم عامدة هدو روحة عنيبة هيرا مرة هدو عالم عامدة واحد بدل عند شرد ما لا ما بس أكوفلا والشراب عبتان كيه شراب كانوا واسدوا كله أسوى عالم عامدة هدو شراب كعبه شراب كو عبه هبير هذا صومكوا كبرايا والجماعي جماعي جماعة إنه من الدجية شرط معها حضو جماعة أسوى عامد عالم بالتحريمية مختارنا صوم كسوى بريا حضو جاهلية هي أو جماعة إنه صوم كبريا وسن أوجي صوم كبريمه حضو عامل ويري الناسية هنا صوم كبريمه صوم كنا بوها المانسان بقى سو حاسك سكيتك صوم كبريمه مختار لو يرينا أسوى مكره دي لو قصبه حاسك لو قصبه قفكي صوم كبريمه هي haddii marka fiiri maalin ramadaan ah hadduu soomkiisa fasahaadiyo maalin ramadaan ah oo dhammaystiran hadduu soomka fasahaadiyo jimaacna uu ku fasahaadiyo waxaa ka ratimahaya 5 shay baa ka ratimi warkaa u fiirso soomkiisibaa wuxuu fasahaadiyey ramadaan dhexdii maalin oo dhammaystiran buu fasahaadiyey wuxuuna ku fasahaadiyey jimaac buu ku fasahaadiyey qofkaas waxaa ka ratimahaya soomkaas uu fasahaadiye 5 shay baa ka ratimaysa koow horta luxuuqul ithmi dambi baa haleelahayo maalinkaas aad soonka burisay oo jimaaca aad ku burisay horta dambi baa kaa soo gaadhay waa dambaabi laba waxaa kaloo ka ratimahaya wujuubul imsaak maalinka inta ka dhiman waxaa waajib kugu ah inaad afhaysatid adoonan soomanayn oo dee afuray yaa haddana sharcigu wuxuu kugu waajibiyey imsaak صدح waxaa kale oo ka ratimahaya afurkaas wujuubu tacziir baa waajibaysa tacziirtu waa maxay waa edbin oo xaakimka xaggiisa ka ahaaday xaakimka ama ninka qaadiga ah ayaa wuxuu u qorayaa tacziir wuxuu yani ama jeedal ha u qora hadduu rabo ama xabsi ama talxiir wuxuu rabo yani wax qofkaani uu kaga zajroomo oo uusan jimaac dambe u laaban asagoo sooman ayuu lagu sameynaya waa la edbinaya macna ila abdaru sameeyay afar waxa kale oo ka ratimaya wujuubul qadaa qadana waa ku waajib oo maalinkaas uu jimaaca ku fasahaadiyay inuu soo qadeeyo ayaa waajib ku noqonaysa 5 xukumka shanaad ee ka ratimaya waxa weeye wujuubul kafaarati al-udma waxa ku waajibaya al-kafaaratu al-udma waxa la yiraahdo ayaa ku waajibaysa oo kafaaratu al-udmadu waa maxay waa 3 shay mid ka mid ah oo waliba waana muratabo ogow adoona mid ka hore haynin tan labaad uma gudbi kartid yani kafaarada marna waxa la yiraahdaa muratabo marna waa mukhayyaro muratabo waxa looga jeedaa kan samee hadaad awoodi weydi kan kala samee hadaad awoodi weydi kan kala samee taasa muratabo la yiraahdaa mukhayyarana waxa la yiraahdaa 3 shay buu sharcigu ku bandhigaya ama kan samee ama kan ama soo aragtid marka fiiri hal mid caynti waajib kugu ma aha 3 mid ka hartaa sameyn kartaa tan marka ma aha tii murad ma aha mukhayyarada ahayd ma aha oo mid hartaa sameyn kartid waa muratabo oo 3 shay ee lagu sheegahayo oo kafaaratul cudmada ka ratimahaya 3 shay midba mid bay ka horeysaa uma guuri karo khaslada koobaad asagoo heli kara
وما جوري كرو إلى الخصلة الثانية إلا إنه كعجزه مد هر إنه كعجزه ما هو ما هني كو مد كوباد وعتق رقبة المؤمنة وحواجب كواه أضون أو إلهي الرسول كي سر ميسن أو مؤمنة له أو عير لما أنت تكرنا بدقى شيء وإن الحريصة كو هذا هين سواقد حريق أضونتاس هداد أودي وإذا أضونتا إلى الحريسين لaba bilood oo mutataabicad soomaysa laba bilood oo xiriir ah inaad soontid ba waajib kugu noqonaysa laba bilood oo xiriir ah miyuu soomi kara qof hal maalin adkaysan waay waa may hadduu ka cajizo 60 miskiin buu quudinahaya miskiinkii walbana wuxuu siinahayaa koombe raashin uu siinaya 60 mud oo raashin uu soo qaadi 60 miskiin buu yuu ku quudinhayaa miskiinkii walbana hal mud oo raashina ayuu siinahayaa saddexdaa shay marka fiiri kow waxa waajib ku adoon xore haddaad awoodi weydo adoonta inaad xoreysid laba bilood oo xiriir soon haddaad awoodi weydid markaas kadib 60 miskiin quudi miskiinkii walbana koombe raashin sii كفارة النوع عاسة وتجب هذه الكفارة على الرجل لا على المرأة كفارة النوع عاسة وحيكون واجبيسا منك أي يكون واجبيسا لكن قبل كو واجب ميسو كفارة كو واجب ميسو وايهاي كفارة وحيكون صلى الله بتكرر الأيام حضور ما أنت الجماعة إسلانتيس وبرنات كي يسوي أصوصا من الجماعة وكل جماعة وبردن شن يتبين بري حضور ما أنا والبس إسلانتيس الجماعة أصوصا من 15 shay baa laga rabaa oo kala duwan 15 kafaara laga rabaa saas daraadeed baa wuxuu ku yiri watatakararu alkafaratu bitakarrur alayam maalmuhu say u soo laalaabtaan ayay u soo laalaabanaysaa ogaati wal istimnaa'i wuxuu ku yiri wal imsaaku afaysasho way aan mufaddiraat laga afaysto mufaddiraatku min adcaami raashinkiya washaraabi abitaankiya wal jimaa'i galmadi ah wal istimnaa'i min wa'asha ama min iska keenid ah بمباشرة لباشرين من اللي اسكا كانوا استمناها وحا لي هذا طلب خروج المني من إني كسو بحضا قفك إنو طلبه معنا أما حضي قفك مني كسو بحضا من غير طلبه احترام بيوصو بحضا وصيح لي مني ما كإماتي مثلا با وايهي صوم كيسي بري مهي معنا صوم كيسي مبرهيو صوم كيسي بري مهيو marka khulaasada markay culimadu soo khulaaseeyaan mas'alada istimnaha oo yaani mas'alatu khuruj al-mini laba ay u kala qaadaan marna soomkii way burinaysaa marna ma burinayso laba xaalo way burinaysaa laba xaalana ma burinayso khuruj al-mini laba xaalo way burinayo midda koobaad waxa weeye istimnihi mini baa iska keentayba يعني وحواي من وعشو بأي كيفية كانت صورة بهسكا كان من ذا كو يعني ضرب خروج المني مطلقا يا استمناه لي هذا مني اسكسو بحنتي او مطلقا معه ولا كان قادر وحلو قيدين ومد كوبات هذه ومن اسكسو بحيه مرك اسكسو بحيه وحو دون اسكسو بحيه صومك كبريا لبو مد كلا صومك برني وحواي إسلام بولا مباشرة من غير حائل حجاب العام بولا مباشرة إسلام ساسي من اللي أقصى بحضي صومك وكبرايا لبدا حالة صومك ويبرني لبا حالنا برين ميسو أو محل لبدا حالة مدى كوباد من ذي كسو بحضي من غير مباشرة مباشرة العام بكسو بحضي تصراحا نظر بوفيريي إسلام بوفيريي وايه أما فكر وفكري هيئة الجماعي وحبو كفكري ساسي من الأقصى بحضي صومك كبر مهي مدى اللبعض صومك برين وحوي من ذي مباشرة يكسو بحضي لكن مباشرة مع الحائل أول سوى حجاب كركيس إسلامتي كلام مباشرة دي يساء أقصى بحضي بري ميسو ليه لكن مدى انضم خلافيو رقبا وحي قوان هدي قفك مرك أهريسا وقفك أيسا من ذي نقاتشين مباشرة مع عاص أما هدي أوجه إني من ذي مباشرة نوعاس يكون دقائق يسوسا بيوجا إيمانا يان صومك يكبريسا مركز رقبا ساسي ليه وحوكو يدو والاستقاعة متج اسكمتاجنتي يا كمل وحيابها وايهي إن لقى عفايست أي واجبته طعامكي با كمل شرابكي جماعي استمنه
يو استقاءتي والاستقاءتي بقى كمل يعني والاستقاءتي ومحي اسكما تجين اسكما تجين بالاختيار اللي اسكما تجين استقاء وحال هذا طلب تعمد خروج القيء متقسو بحديثة وكسيدة الله دلبا ليلها كس إن المتق اسكغسو بحسد متق إنه كاسو بحو دلبتid adoo waliba u qasdahay afka inta gacanta gelisaas kama tajis soomku ka buraya walow matagaasu haba yaraade nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa laga warinayaa inuu dhahay man dara'ahu alqay'u falaysa calayhi qadaa'un wa man istaqa'a falyaqdi qofku matagu qasbo oo ka qaalib noqdo matagiiba ka qaalib noqday uu matagaya qofki mataga ka qaalib noqonahay qofkaas falaysa calayhi qadaa'un buu dhahay qada laga marabo qofkaasoo يعني صومكي كم برهيه ويا قفكي متق وسوق قصبه لكن ومن استقاء قفكي اسكما تجي اصلا انتو افق عنت قليو فليقضي ها قضيه معناه سمعت مربى هدي اسكما تجسي اسكما تجين تاسا waxay tahay ba mufdiratun bi nafsiha nafteeday ku afurnaysaa hadaba mar iska mutajis soomku ka buraya marka bil ikhtiyar lagu yiri iska mutajinta markuu soomka burinayo waa inaad koow caalim tahay mukhtaarna aad tahay caalim waa inaad tahayo haddaad jaahil macduura aad tahay soomkii kaa buri mahayo inuu iska matajintaan soom buriyo maadan ogeynba jaahil macduura aad ahayd soom kaa buri mahayo haddana waa inaad mukhtaar tahay haddaad mukrah tahay oo intii dhafoorka lagaa saaray lagu yidhi ismataji lagu dhahay oo aa ismatajisay soomkii ayadana kaa buri mahayo waayahay waxaa la mid a hadduu naasi yahay oo uu halmaansan yahay soonkii dhanba waa halmaansanaa ayadana soomkii ka buri mahayo intaasba soomkii ka buri mahayo laakiin hadduu caalim yahay oo caamid yahay oo mukhtaar yahay oo markaas uu iska matajiyo soomkii wuu ka burahayaa qofka asaga ah wa min tamaami sawmi